ninkan wuxuu xaaska soo waday moolkaasi oo uga dhar markaas ay qaabkaas ku dhigaysa kadibna soo baxaysa walibina isagoo naxay kaasi ku qeylna qofta sidan ugu soo labisay eedan way yaabaysa waxay dhaysaa maxaa qaldan ninkan kaasi eedan waxay leedahay labiskii mid ka xunta anigana soo ma qurux badin kaasi ku celcelinaysa quruxdeeda mid ka masiraysa kadibna ku soo caraysa isagoo korkiisa ku soo duldhacaysa markaasi fiirina wuxuu la yaabay qaab daradeeda kadibna uu sii deynaya markaasi ku qeylna qofta haleego arag qurux badan la soo geliyo kadibna waa la waday halkan la gelina eedan la soo gelina dharkan quruxda badan markaasi indhaha ku qabtan wuxuu dareemay inay meesh ka soo muuqato bil kale qurux badan isla markaasna qalbigiisa wuxuu dareemay degnaan xasloon isagoo soo bixinaya kaarka lacagta fiiradan waxay arkaysaa inay aad u tiro badan tahay sidoo kale waxay dareemaysaa diracaas inay tahay mid qaali markaas waxay ku dhaysaa ma wax qaali aniga mar tuu badan ugu qorshe garin iskili waxa rabaa inay ahaato $100 si raacnaysa $100 haday ka badan nasiibkan wuxuu maanaa ayadoo u sheegaysaa inay leedahay awood gaar ah taasi awood wax walba ay ku sameyn karto maama kamid ah imaanaysa tababarheeda wilban isagoo ku dhahay waxaad ku dhaltay awood sidoo kale wuxuu raacnay cid ku joojin kartaa beerata ma jirto markaas wuxuu siina jabkatina wilban isagoo raacnay qojabka kalkatiinkan qof ay haysto qofkaas waa inaad suuraysaa kadibna aad guursataa marka gacanta ka saaran katinka markii ay waayaysaa markaas dhinaca fiirisa kadibna soo baxaysa su'aalaha magaalada nasiib wanaag isla markii magaalada soo gashay badbaadinaysa odaygan wilban adagoo gaarigan si xoog ah u riixaysa markaas ay odayga naxda sidoo kale uu yaabay wuxuu leeyahay awood leedahay gabadha isla markaas uu maadcelin eedan ay ku dhisay maasantaa sidoo kale laakiin xidhisa gaajo ay haysaanay kaas wuxuu ku ka gaajko soo bax guriga ayaan ku geenay kadibna soo waday cuun kan xaafadiisa sidoo kale gabadhii quruxda badneed waxa loo keenay cuntaan oo raashin ay dhammaan wada cunaysa hal xataa kama reebayso aadna wuxuu farxaysa waxaan ku dhisay raashin kala halay keen kale xidhisa isla markii adiga meesha ka soo muuqda awoogan uu ka bar kaasna adiga waxaad ku dhaday maxay martay maanta guriga inuu joogo markale awooga uu soo wuxuu keenay xaafadaha aydan waxay u dhaday gabadha waa inaad guursataa adigana daawada ay leeyin muuqaalka hina like noo saarto kaasi markale aydan waxay u sabaysaa aniga adiga binaas guursan sidoo kale waxay dhisay aniga balan ayaan qaad wiilkayga ku daray gabar qurux badan sidoo kale aan soo bixiye katiinkayga marka katiinkayga soo bixiyeen isla markiiba adiga katiinkayga ayaa la soo bixisay sidaas ayaan isku lahaadeen adigana markaas ay waxaan ogaaday inaan noqotay midkayga nasiibka ayadoon sidoo kale u raacinaysa hadda laga bilaabo aniga ma doonayo qofan adigana nololna la wadaago kaliya waxaan rabaa adiga kaliya inaan nolol kula wadaago maantana waa guurkeena